magacaygu aadan axmed ciise waxaan ku xirannahay xabsiga dhexe ee Hargeysa waxaanan ku xirray muddo 5 sano markii horena waxaana la xukumay ama nala ka keenay xabsi ku yaala shiisharis dawladda la yiraahdo shiisharis maraakiib ay leedahay noqotay anoo kalluumaysataa shiisharis aan la geeyay maxkamadana la saaray halkaasana la ku xukumay xukumo kala duwan oo tiro badan oo sida xukunka 4 iyo 20 iyo 18 xukumo isku jiraan la ku xukumo shadayta bacdi waxaana la yiri waxa lidin ku wareejinayaa Soomaaliya marka waxaan niraano Muqdisho u dhalano Muqdisho ka soo jeednaa waxa la Muqdisho hadda xaqiiqada dhisna wuxuu ka dhisan yahay Hargeysa iyo Boosaaso Hargeysa iyo Boosaaso mid doorto Hargeysa soo dooranay ambil iyo waxa la yiri wax alla waxa u baahantiin xagga ka qaadan kartiin adiga halkaan la keenay 2012 bishii March markii halkaan la keenay adigu dhowr cisho ka bacdi waxaan noo timid hay'addan haysto qaramada midoobay ka tirsan oo la yiraahdo UNODC markii horena ayadana soo qaaday waxaan ku niraahdaa halkan waa joognaa waxaad gisheen ololihii sidii guriyiheenii ama meesha hooyooyinka deganayeen aad xabsi uga dhisi lahaydeen ood nagu wareejinaydeen waa yahay yiraahdeen ugu waxaan isku diyaynaa 2 sano ugu badnaan 3 sano inaan hawshaas xabsiga ku dhamayno Muqdishona ku geyno sidaas ay nagula ballameen markay sidaan nagula ballameen waxaa dhacday in hadda aan marayno 5 sano iyo xoogaa inta ilaa aysan wareejin aysan dibna noogu soo noqon muddo dheer ma hay'adina haysatay cid arrinteena aan kala hadalnay cid aan u cabanana aan weynay intaasna cabasho aan wadnay waxa iga warantaa markii ugu horeysay xageelad ka qabtay waxaana la ka qortay marsooyinka Soomaaliya marsooyin kamid ah hadda anigoo kale iyo ragga ka socona waxaana la ka qortay marsada ciga diraasad dusheeda anoo kalluumaysataa oo doon weyn oo foolfaa oo kalluumaysiga wadan waa gartay xilligaas marka sanadka aad ma noo sheegi kartaa xilligaas la qabanayay number 10 bishii 18 ana la qabtay ciidamada Soomaaliya oo dhalashadooda shiishalis wada ay tahay hayeen ciidamada shiishalis ay hayeen oo maraakiib shiishalis ay leedahay noqotay sidaasana shiishalis ay lagu geeyeen markay noqotay imise qofaatiin hadda halkan waxaan ku jirnaa ragga aan Sooman oo halkan ku jira oo cabanaya waxaan ka koobanahay 20 nin adiga dibigii waxaan ka soo jeednaa gobolada dhexe gaar ahaan deegaanada sida Elbuur Cadaado iyo meesha la yiraahdo Samareer wax dhibaato oo aad kula kulanteen xabsiga Hargeysa ku yaala ma jiraan dhibaatooyin badan aan kala kulannay oo nagu soo maray hatta waxaan nagu soo martay inaan 1 sano iyo bar silsilad labada lugood noogu xireedo sidii awr bakran aan sulsulaynay oo silsilada nagu xireed waxaan nagu soo martay tacaddi badan dhibaatooyin badan intaas aan ku jirnay rafaadan la kulmaynay marka wax halka lagu soo koobi karo ma waxaan kala kulan waxa kale nooga sii daran qofka bini'aadanka maxbuusku cabanaya waa inuu meel wax u helo qof allaale qofkii mas'uulaad cabataba uu ka dhageysana cabashada mar allaale cabashada uu ka sii qaadayo dib kuugu soo noqonayo cid wax ku qodoyda kuugu soo noqonaysa ma hadda adinku waa xukuumantiin Soomaaliya intii dhamaantiin inta hadda xabsiga Hargeysa ku jira waan xukuumanahay waliba xukuumadda dheeran xukuumadna 4 iyo 18 qofka ugu badan imise sano ku xukumaya 24 sano qofka ugu xukunka yarna 18 sano waxaan soo jeedinaynaa madaxda dawladda sida farmaajo Xasan Cali Khayre iyo Jawaari madaxda ugu sarreeya xildhibaanada dhammaan inta shacab weynaha Soomaaliyeed ee koonfurta bartamaha Soomaaliya u dhashay waxaan ka codsanaynaa annagu waxaan u dhalanay koonfurta bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe waxaan ka codsanaynaa in arrinteena la soo farageliyo in meeshaan nala ka qaado meel dhulkeena eheladeena iyo qaraabadeena midageeyo maxaa yeelay qofka maxbuuska haddii la xukumo xaq wuxuu leeyahay inuu meesha u dhashay ama gobolka u dhashay uu xarigiisa ku tirsado ku xiraado meel eheladiisa qaraabadiisa uu kala xiriiri karo ama uu dhow yahay ama uu ka arki karo kale maanta Soomaaliya waxay wada noqotay dawladda dhexe ka soo maamul goboleedyo annagu dhulka hadda aan ka soo jeednaa rasmiyan magaalada madaxda aan isugu imaanaynaa dadigan dhalashahan markii la yiraahdo Cadaado maamul goboleedka ka dhisan la yiraahdo Galmudug waxaan ka codsanaynaa marka haddii cid kasta maanta maamul goboleedkeedii xiri kara hay kara ilaali kara xabsiyale dawladda dhexe ka soo marka waxaan ka codsanaynaa haddii dawladda dhexe xataa nala geeyay in maamul goboleedkeena la ku wareejiyo cid walba maamul goboleed